marka laga taga gayiga ay Soomaalidu degto wadamada cadaanka caruurtooda marka ay seexanayaan waalidku ilmaha yar waxa uu sheegaa wax walba inay nabad yihiin deedna waa la dhunkadaa ayar bay ka baxaan soo ilmaha yar seexdo hadaba bal inaga Soomaalida ilmaha yar waxa ku seexinay leeg ما سيحنيسيد والله يلا ما أنت كبريان سيحك ولا هاي بتدن كذا شيء كريم كسر ما نقلي واتم والله كلا عن بتشي كلا عني كان مسيحني ما سيحنا أديك أبى في هر ريقة الأخرية لا إله إلا الله محمد رسول الله إن بدأ عدانك حول بحلقة كتراني غير كي أنا أدري رأسان شيء فينكو أمان الله وسواس بان قاعد يعمر دقدق لا إله إلا الله محمد رسول الله من أنت الإسلام هاي ما نتشيل أدعية إيو قرآن الله اسم مريم ما نتشيل لا إله إلا الله محمد رسول الله إله عندنا سحسمها سنين نسألك نوما هنيئا يا رب العالمين هلو ilmaha yar halku nasan laha maskaxdiisa aad baqasho ku abuurtay markuu soo kaco umurkiisu caadi ma noqonaya ama ilmaha yar maskaxdiisu taama noqonaysa yaani dhaqamada ugu xunxun ama waxyaabaha qaladka ah ee caruurteena ay kula kacnaa waxa kamid ah tusaalahan ilmaha yar haduu xanuunsado oo kale haduu xataa dhol cadaya ama uu qoslo waxa lagu radaa uu qoslay ilmaha yar ma xanuunsanayo dadkan Soomaalida ilaa ku hor go'do ama aad ku hor sakaraado uma qaadanayaan ilaa ay xanuunsanayeen kale يعني ilmaha yar naqani waa xayawaan oo kale markay uu dhasho waa sida xayawaan oo kale iska yahay wuxuu hayuu ku qabadsiinaya subhanallah ayuu waliba qoslaya galgalanaya way waxaan wax ku yeelaysa in kale ma haysto ilmaha yar waxa lagu tarbiyadeeyo iyo waxa uu barto goordama baranaya kani waa waalidka kan waa walaalka kan waa sida naxariista la baraya waxbarashada la baraya markaas ilmaha yar wax garanaya hadii waxbarashadii tarbiyadii sideetanaadkii iyo wixii ka horeeyay waalidka ku tarbiyeynaya caruurtaada ku tarbiyadaysa 2021 oo tirada reer caruur baan leeyahay budna waan la dhex taaganahay ilmi yar agtaada inta soo fadhiisto qofkaaga budka haysta wax ma ku sheegay dhibtiisa ma ku sheeganaya kuma sheeganayo ilmi yar la saaxiibi lahayd eed wax u sheegi lahayd eed niyadiisa ilaalin lahayd markii ilmi yar niyadiisa dila xataa caruurteena yar markii inagu akufaan ama qof inaga mid kufo inta reerka joogtaa way ku qosashaa sidii yahuudi ku dhex kufay ilmi yar maskaxdiisu caadi ma noqonayso taama noqonayso ilmi yar maskaxdu ka curiyaamay ayaa ilmi yar ay saaha ee dhibtaas oo dhan inuu la soo maray ee waxaas oo dhan inuu ku sameeyay aynu doonaa hadhow inuu anfaco ama wax inoo qabto ama wax ikhtiraacyo umada la tartamo isagiiba khaatiyaan taagan ilmaha yarnid maadi barto oo waxaad lacagaysa aad maadi kaga kharash gareysto waxa uga qiimo badan adigoo diintiisa bara soo adiga waajibkaaga u gartay waxaad ku leedahay wax xaq ku leedahay waxa ilaahay xaq ugu leeyahay waxbarashada maadigi ina qiimo ma laha hadii aanu qofku aanu diinta ka garanayna ama maadi bila diini waxbarasho ma aha sababtoo ah meel dhow baan ka tusinaya bal ilmahaaga yaraa oo 30 sanadood ku tabcaysay oo aad ku xanuunstaan shahaadada ku qaban karin ka war ama hadaad dhimataan laba ragcadood ku soo tukanay kuna soo ducaynay waxbarashada maadiga kaliya qofku way qurxisaa oo suudin buu yar xidhaa kaba yar qurux badan iyo laabtoon buu qaataa wax kale soo kordhisa ma laha waayo qof dhan oo PhD sita oo shahaadada PhD sita ayaa laba caruur dhalaan tarbiyin karay maxay u tartay ama nin waxaad arkaysaa shahaadada master sita oo labadiisi waalid oo magaalada ku noolaan 6 bilood hal waran ama iska warama oran yani waxbarashada maadiga qofku hadaanu diinta ka dhisnayn waxba uma tarto ilmaha yar waa sababtan mar walba wadaado waxa uga qurux badan inta maadiga laga ilahay intuu yar yahay in diintiisa marka hore la baro marka dambe maadiga wuxuu baran karaya ha barto yani ilmaha yaraaba waxa bas baati saaraysa aroortii maan loo dhaw wax ugu daalaysa waxbarashada maadiga ajaanib baad waliba u geynaysaa wax u dhigaysa hadaad istiraada ilmaha yar raaco iskuulkii tagna markaad ajaanibtii u tagto adigana fahmino u baahan turjubaaniye ninku macnaheeyo waxa ninkan uu leeyahay hadaba adiga marka turjubaan uga baahata macalinkaad ilmaha yar u geysay muxuu barayaa ilmaha yar wadamada caalamka 80% waxa awood la saaraa jiilka soo kacaya tarbiyadooda iyo sidii loo wanaajin lahaa say adduunka wax u qaybsan lahaayeen say wax u sameyn lahaayeen way berita ka maalinku ku bedelayaa waa iyaga dadkeenu inta ugu faraha badan le waxay ka ooyaan oo maqaaxiyo meel walba kaga sheekeen xaaladda imkayna haystay dadka imkayna haysta mar walba laakiin anigu waxaan ka sii ooyaya dadka berita hore in qabsan doona waxay yihiin kuwaasana ka xun oo mar walba waxa leegayahay mustaqbalka soo socda waalid kasta oo fiidiyowgan daawanaya waxaan kula talinayaa ilmaha yar inuu baro diintiisa inuu tarbiyeeyo oo ugu tarbiyeeyo sida ugu saxsan oo ilmaha yar la saaxiibo oo uu fahmo oo in caruurta niyada loo dhiso oo marka la seexinayo si qurux badan oo niyadoodu taam tahay oo iyago way qofku markuu seexanayo waxa lagu talagalay in niyadu nasato naftiisu nasato in baqasho iyo cabsi lagu seexiyo looma talagalin si ilaahay inaga inoogu naxariisto
ubad dambe oo aakhira markaynu wada dhimano qof walba oo dhimanaya inuu soo duceeyna inuu helo dalkeena iyo dadkii dambeenu ka tagaynayna oo aaya aynu uga tagno way record kuma inaga agtii hambalyoonka marka qof walba dhasho ku dadkiisa diintiisa dalkiisa waa anfacay noqdo tarbiyadiisa inuu ilaawina qodobka ugu dambeeyay ka tagaya wuxuu yahay والسلام عليكم عقبات الغريب ليس ولا حاضرين حجي ليس لا عين عقبات الغريب